saaro aad iyo aad baa u mahadsantihiin saad juhdiga iyo khayrka u jeceshihiin inaad mar walba aad u taagnaataan oo ka qayb qaadataan oo isugu boorisaan kelimadaydu waxay ku saabsan tahay qofka muslimka adduunyadan jooga waxa uu u jooga waa inuu ogaadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u keenay adduunkan muhiimadda laga leeyahay meesha uu ku dambaynayo waxa loo abuuray iyo jaaniska u haysto waa inuu qofku fahmaa ilaahay adduunka markuu abuuray oo bani aadamka uu keenay wuxuu noo sheegay waxana loo keenay وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي وحو ليا جن يا إنس ومن إلا إني أنيق وحدان ويعابدان معان ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إني رزقي أنيق إسيان كدوني مهيو إني يقوديان كدوني مهيو إلا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وحضوا ملايسان إن أدين أبورني عيار حقنا لدين سعلنا هين حقيقة وحي تهيدتكم مؤقى وحي إلهي وأبوري ولذلك غفلتكم كسوين غفلت وقفك هالمانك إلو سناشا وإلو سنيهي iyo mooganaanshaha uu moog yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqi uu ku lahaa iyo dikriga ilaahay mooganaanshaha qofku uu moog yahay arrin khatar ah weeyaan gaalada ilaahay wuxuu ku tilmaamay yaclamuuna ظaahiran min alxayaati addunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun waxay og yihiin oo keli ah waxay og yihiin oo keli ah adduunyada dhaldhalaalkeeda iyo daahirkeeda oo keliya hay og yihiin aakhirana way ka gaafil oo ma oga tilmaantaas gaalada iska leh waa tilmaan gaaladu ay leedahay adduunka dhaldhalaalkiisa iyo noloshiisa iyo raaxadiisa iyo sida loo hormariyo way og yihiin laakiin aakhira waa ka gaafil baa ilaahay subxaanahu wa tacaala كذلك إلهي سبحانه وتعالى فرعون عليه لعنة الله إلهي وحو ليه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون إن بدن أوضتك كمد آياته النواموجين أو هالمانسيين آياتك الإلهي وحو ليه إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون كو إلهي إلا كلا كيسا أهرتشين هين والدنيا دي كرها على النقضة يكون حصلي آياتها أننا موك وهل مانسان اسكحدو دا كما قنتهاي هو سيهوي قودو والنار وحي أي كسبدين سببتين بين ناكتك كلهي إلهي وحي الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون dadka waxa u soo dhawaaday xisaabtoodii waxayna ku sugan yihiin غفلadu waa maqnaansho qofkii ilaahay xuskiisii iyo diinkii ilaahay iyo xiriirkii quraanka markaasuu muddo dheer wuxuu ku jiraa غفلadaas adduunyada nuuciyadeeda iyo axwaashaas iskaga jira qiyaamihiina waa soo dhawaado waqtiga la xisaabin lahaa baa soo dhawaado ayaguna غفلadaas ay ku jiraan xaqiina waa ka jeesanay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu leeyahay walaa takun min alghaafiliin nabi maxamed oo kuwa ghaafiliinta ah oo ilaahay نقن آيات كان إلهي وحو لي ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هادعين وركي سنة هيالي قف عن قلبي جيسا غفلت عن كردني
ilaahay dikrigiisa qaflad looga riday hawadiisa iska raacay axadkaas ha adeecin warkiisa ha yeelin nabiyullaahi maxamed walaalayaal qafladdu waa khatar waana cuquuba min allah ilaahay addoonka waa ku ciqaabaa marka addoonku macaasida iyo dembiga uu ka badato oo ilaahay uusan u toobad keenin marka dambe qalbigiisa iyo dhegihiisa xaqa laga daboolaa wuxuu ilaahay leeyahay ulaa'ika aladiina tabaca allahu calaa quluubihim wa samcihim wa absaarihim ulaa'ika hum alghaafiluun kuwaasi waa kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigooda daboolay oo maqalkoodii u daboolay oo araggoodii ilaahay u daboolay waana kuwa ghaafiliinta ah ee ilaahay moog weey ha noqonin aakhira moog qof ilaahay moog oo aakhira moog ah ha noqonin ee ka taxadar ilaahay subxaanahu wa tacaala qafladagay dadka jumcada ka taga jumcada qalbigooda in la daboolahayo timbara lagu dhifanahayo waa arrin aad iyo aad u khatar ah waa in arrinkaa isagaa la ogaadaa waxyaalaha keena qofku inuu xaqa moogaado in badan oo ilaahay xuskiisa iyo khayrka iyo wanaagga iyo qalbigiisu inuu qoyanaado waxa weeyaan ka dheeraynahaya waxaa ka mid ah alinqitaacu alkathiir can ziyaarati alqubuuri wa tadakuri almowti waddaari alaakhira qofku inuu ka go'o qubuuraha inuu booqdo oo qubuuraha uu dul istaago oo aakhira uu xasuusto oo geerida uu ku tala galo uu xasuusnaado haddii qofka intaa laga waayo aakhira moog buu noqonayo walihaada baa ilaahay wuxuu leeyahay alhaakum attakaathur xataa zurtum almaqaabir waxaan idin mashquuliyey adduunyada jacaylkeeda iyo wax kala badsi iyo boob iyo nimcadeeda iyo tartankeeda ilaa aad qubuuraha ka booqateen oo aad ka dhimateen weey wasirtum min ahlihaa weey ahalkii qubuuraha ka mid noqoteen sidaas ayaa tafaakhur iyo iskugufaan iyo tartan iyo hebel ku dayo iyo hebel ka daba tag ayaa sidaad u hayseen dabada ayaa qubuurihii aad booqateen oo ka dhimateen walidaalika nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam wuxuu leeyahay akthiruu min dikri haadimi laddaat waxaa badisaan macaaniyaalka midka gooya macaanka midka jarahay xasuustiisa badiya yacni almowt geerida weeyaan alla waxa maanta kuu macaan way kula kharaaraanayaan markaad qalbigaaga aad aakhira iyo qabriga ku xirtid markaad qabriga intaad dul tagtid aad booqatid markaa aragtid meydka la sii wado marka keligaa gurigaaga adoo joogtid maskaxda aad ka shaqaysiisid in aad dhimanaysid lagu dhaqahayo lagu karfanahayo cid lagugu xabaalayo lagaa soo tegayo axwaashaas markay qalbigaaga ay ku wareegto waxaad ogaanaysaa waxaad noqonaysaa qof macaankii dhamma ee adduunyadu ay lahayd qaraar buu kula noqonahaya wax kula macaanaanahaya iyo wax raaxa kuu noqonahaya midna ma leh arrinkaa isagaa ka dheerow aad iyo aadna iskaga ilaali inaad aakhiro iyo qabriga aad moogaatid xasuustiisa xadiidkii kale nebigu wuxuu leeyahay zuuru alqubuur fa innahaa tudakkirukum alaakhira qubuuraha booqda oo qubuuraha ziyaarta oo qubuuraha taga aakhira ayay qubuuruhu idin xasuusinayaan haweenka qubuuraha inay booqdaan culummadu waa isku khilaafeen laakiin haddii qabrigu dhow yahay usan fogayn wax fidnaana aan laga baqahayn safar dheerna aysan u aadahayn oo sida suuqa ay uga soo adeegato kale oo suuqa agtiisa kale meel lamida ku yaallo inaad dul istaagto ku cibro qaadato la diidi mahay waxaa xaqiiqo ah qofka mu'minka inay la gudboontahay inuu ku dadaalo inuu isticdaad ilaahay la kulankiisa inuu u diyaar garoobo oo ku dadaalo maxaa yeelay walaalayaal axwaal waaweyn baa naga dambaysa waxaa naga dambeeya malaka mowt iyo sakaraadka iyo geeridaa naga dambaysa waxaa naga dambeeya alqabru wadulumaat qabriga iyo mugdiyaalkiisa waxaa naga dambeeya albacthu bacda almowt isi soo bixin la isi soo bixinaya dhimashada kadib waxaa kaa dambeeya asiraat jidkii siraadka ahaa ee ciriiriga ahaa ee sidibta badnaa ee khatarta ahaa oo la marhayo
حكاد دنبيه وحويان ميزان كي عمل كاغا لميزامي حكاد دنبيه بونك قيامها الله عفوفيو waxaasoo dhan waxa weeyaan waa wax ku sugahaya adiguna qaflad baa uga sugan wanufiqa fi suuri dhalika yawm alwa'id ba ilaahi bunki qiyaamaha la afuufay wana maalinkii lagu ballamay oo la isku yabo hay wajaa kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid naf kastana waxa imaanaysa ayada uu la socdo sa'iqun wa shahid laba weeyaan sa'iq waa malak kaxaynayo hogaaminayo meel inay u dhaqaaqdo aan loo ogolay wa shahiidna waxa weeyaan camalkeedii lagu dhinac wada weey camalkaagii baa lagu dhinac wada waa aragtay qofka marka xabsiga inta laga kaxeeyo maxkamadda la geenayo saako kale waxaa la soo qaadaa malafkii laga qoray markaas asaga iyo buugii baa la isku wada askarigu wuxuu isku wada qofkii iyo buugii laga qoray oobigii laga diyaariyay buu isku wada aakhirana sidaas weeyaan qabriga markuu qofku ka soo baxo malag baa kaxaynaya camalkiisina waa lagu dhinac wadaa buugiisii uu qoray maxsharka qiyaamaha marka la geeyo ayaa waxa halkaa lagu tusahayaa kitaabkii baa loo kala furahay iqra kitaabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba kitaabkaaga akhriso asaga kuugu filan xisaab maanta cid kale laga weydiin maayo asaga xisaab kuugu filan akhriso ayaa la leeyahay qofkii marka kitaabkii marka lagu dul akhriyo oo kitaabkii uu la kala baxo fadaa'ix iyo ceeb uga soo baxdo waa xaalad kala guura waa hoogay oo ba'ay meel u maciisan kari meel u laaban karana aan la arag dadna ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuu yasiraya kitaabkooda markay arkaana way ku farxayaan kitaabkooda markaasay dadka kala tusahayaan inni dhanantu anni mulaqin xisaabiya war kitaabkayga arka markii hore aan ku talagalay xisaab aakhirana la kulmahay xaraantii baan ka dheeraaday waajibaadka ilaahay baan ilaaliyay wax alla wixii dambiga ma ka fogaad khayrkan iyo wanaaggan waan la kulmahay inaan la kulmahay waa ku xisaabtamay waana ku talagalay sidaasaa nafta wanaagsan oranaysa axwaashaas oo dhan wayna sugahayaan وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما قال لي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وحال لي هي أرن كان غفلت بقى وقصقنك وإلو سينيسي كمان أيضا تلقي لسوماها فكشفنا عنك غطاءك داهبا كافي نبال لي طول كيكو صارنا إنه إسكين دا تريسي ما أنت ولا قافي وحا هورتا على كبغضا وجهنم جهنم أي هورتا على الطاب مركز أرقيسو تاقمية وحديد ونقونا هيدا وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين الله ترجمان قف كست إلهي بالله الله سوى عيدو ترجمة سنة أن لا أرك مركز وحو فيننا هيا دين عيسى مدك فلا يرى إلا ما قدم وحو فيننا هيا دين عبدح فلا يرى إلا ما قدم وحو صهر مرصدي ما نوحك لا أركب ما هي لبدا دين عمركم في الشق مدول بعمل كيسيب أيام وحو فيننا يا هرتيسا فلا يرى إلا النار تلقاء وجه وحك لا أركب ما هي نار هرتاغن بو أركا هيا لا إله إلا أنت سبحانك نار هرتاغن أيو أركا هيا مدق يبدح نعمل كيسيب أيام ميل لو دقاقرا مله وانا لو ويدينها هي عن عمري فيما أبناه عمري سيحقيكو بابي وعن شبابي فيما أبلاه لأن يرنمدي سيحقيكو تقودي وعن علمه فيما عمل علمي سمحوغ عمل فلي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وحي ودقال لها حقيقة الشقية محرام بك الشقية بس حلال حقيقة سكوب بالحجي سؤالها سؤالا نسوغ يوي مالك أغلب السؤالات بلغاوي دينيا ورد مسلمات داهي أقو حقيقة سوى الشقية سوى بلغاوي دين وفاري قاسير يربو يقولون هذا كسوى الشقية سي هوق يبابا كو دعي خيرنا ملي مالكنا وكنا أرجليس هادو ميل وناكسنا كسو الشقيسي سؤال لبعض بكوتا على حاجة كوب بحسي هو حكوب بحسي ميل حن بس ميل وناكسنا بكوب بحسي وسؤال كسوي سو أيضا كوتا الله كل جويدين هاي عمري جا يركع واد هاي ستوى الجويدين إلهي سبحانه وتعالى ومضى عن عمري جيدا عمري جاهم بكذا لكن هديت دلالان عمري لو بركة يقول نبي جواك هي أعمار أمتي
ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ummadayda cimrigeedu waa 60 ilaa 70 wax dhaafaya iska yar waa la baaqiisa ciyaar ku dhamaado oo macna darro uu ku dhamaado oo aakhira la'aan uu ku dhamaado oo ilaahay xuskiisa lagu iloobo waa qatar cadiima weeyaan waa kan nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam law ta'lamuuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wala bakaytum kathiran dad ogaan lahaydeen waxaan ogahay in yar baad qosli lahaydeen in badanna waad booyi lahayd wala kharajtum min as-su'udat banaanka u soo bixi lahaydeen guryaha inta ka soo taj'aruna ila Allah oo ilaahay u cala cala xanaha guriga oo kale qofku markuu ku jiro hadii guriga dab uu qabsado ama waxa weeyaan madfac uu ku dhaco ama bahal weyn lagu dhex arko qofku asagoo xagga iyo xagga aan fiirin soo cararaya qof walba guriga waa ka soo ordahay farxadaas banaanka ah ayaa hal mar la isku arkahaya ayadoo lacaga banaanya oo la wada cararahay nabigu wuxuu leeyahay waxa aan arkay hadaad ogaan lahaydeen oo aan ogahay ila nabiga jannada naarta la tusay hadaan ogaan lahaydeen waxaan ogahay banaanka u soo bixi lahayd idinku ilaahay u cala calahay qiyaamaha dambeeya cadaabku caadiya ma ah nas'alullaha salaamata wal aafiya waxa kamid ah asbaabaha qofka ku keenaya inuu aakhiro moog u noqdo aakhiro u mogaado ilaahay dhikrigiisa inuu ka fogaado oo uu noqdo qofku maanto dhan qofa ilaahay xusin u noqdo waa khatar cadiima al-inqitaacu al-kathiir an dhikrillah dhikriga ilaahay oo laga go'a khatar weeyaan xuska ilaahay wayna afka ku haysaa adkaarta quraanka akhriskiisa wayna afka ku haysaa waka ilaahay uu leeyahay quraanka kariimka nabiga soo ka waramaya وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا إلهو قوم كيجي قرآن كوحي كدكتين مثل لجها شري إلهو قوم إلهي بكت عوينية نبي عليه الصلاة والسلام من قوم كيسي قرآن كي كهجرودين قرآن كمركو لجه هجرودو آخر كيسا يكون رقم كيسا لجف قاعدو ولا مو قاعدو ومصحف كمان على سواق قاعدين حكم التهي وحيالها قف قلبي سبابيني ونورك كقاضي وعند الآن تكريدية وآخر الآن تكريدية هذا توقفك ونقنا هي سوا وحي قانه هري عامي ونقنا هي سفرة مرك حسك إلهي قبصو وذكر إلهي بدي إن القيم وحلي عليه رحمة الله على قدر الغفلة عند الرجل تكون بعده على قدر الغفلة عن ذكر الله يكون بعده عن الله انت الهي حسكيسا قفك كفر يهي بو الهي كفر يا سبحانه وتعالى مركو انتو الهي حسكيسا بدنا هينا الهي بو اسي دوانيا سبحانه وتعالى ذكره مركو قرآن كقلبه وجلعيا الا بذكر الله تطمئن القلوب قلوبتم حي كو حسشتا قلوبتم حي كو جلعدا قلوبتم حي كو راحيستا والهي ذكريسا يا مناجاتكيسا يا حسكيسا ويان إلهي سبحانه وتعالى هينا وافجيو هلنا هينا كهنونيو إلهينا waxa weydiisanaya بأسمائه وصفاته أولادنا إلهي إنه كدغ أولاد صالحين kuwa baariyaal ah kuwa lunsan suuqa galay إلهي hayno soo hanuun إلهي hayno soo hanuun Allah hayno soo hanuun waan ogahay hooyooyin badan baa cabanay waxay ka cabanayaan ilmihi salaad la'aantoodii akhlaaq xumadoodii adeecid la'aantoodii waalidka adeecayaan laga waayay suuqa iska wada galay والقول بنيه ودعينا إلهي سبحانه وتعالى أولاد الله نسوا هنوري الله نوها هنوري أنا قلنا أن كد دالنا أولاد داس إن النقطان أولاد علمي برتاح سبحانه وتعالى ذنبي نية ذنب والد كان بالله نضعفه كلمة دي أنت تكوكوبها هي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ معنا.